halkani waa magaalada Nairobi waxaan maanta mar kale la kulmi doonaa ganacsade daayar oo Soomaaliya kaasi oo ka sameeyay hoteelo malaayiin dollar ah magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya dhammaadkii sanadkii 2023 ayaa maraan waraysi la yeeshay ganacsadahani daayar ee Bashaar oo waqtigaasi sameeyay 2 hotel oo 5 star ayaa hamigiis waxa uu ahaa in dhammaadka sanadka 2024 uu sameyn doono hotelkii saddexaad oo 5 star waxaana rajadii Bashaar ay noqotay mid rumowday Bashaar ayaa sidan ku tilmaamay sirta ka dambaysa guulaha uu ka gaaray dhanka ganacsiga waa hadal yar iyo hawl badan motivation fara badan iyo buu akhris fara badan iyo jaamacado fara badan wax badan ma bedelaan waxay ku tusayaan direction ko kaliya laakiin mar walba waa action is action marka mar walba it's what you do not what you say iyo hadii aad wali leedahay waalidka ka ducayso waalidka leedahay waalidka ka ducayso hadii mar walba ilaahay inaad ku xanato waxa way ilaahay rumee rasuulkiisa rumee iyo walba bil waalidiin ihsana waalidiintana ka faa'iideyso mar walba hadalkaadana ha yiraahdo hawshaadana ha badnaato fariintani ayaa waxa Bashaar la wadaagay dhalinyarada rabtay inay guul ka gaaraan ganacsiga Soomaaliya danahay tala badan uma baahnin shaqo tayo badan baan u baahnaa ما شاء الله community waxaan ka dhalanay business people oo ayaga maaragtay entrepreneurs ah laakiin halka ciladona haysto waxa weeyo qof walba xorba inuu maaragtay overnight success ku gaaro ama shortcut wax leeyahay ama degdeg hada dareemaysaa sanad ka hor baad noo timid markaad noo imaanaysay waxaan haysanay baan maleynayaa 2 hotel hadda alxamdulillah waa branch saddexaad 3 sano oo dhismo ah iyo expansion iyo improvement iyo qurxin iyo hagaajin baan ku jirnay baan yaan hadda meesha ku soo gaarsiinay marka wax walba sabr bay u baahan yihiin waqti badan in la geliyo marka Bashaarka maanta ha eegina Bashaar 10 sano meesha ka soo bilaabay inaad iskala soo midhigtaa laga rabo markaad wax bilaabayso laakiin hadii ayuu maanta oo channelkiisa 1 million daawanaysa ama 500 daawanaysa dad dhahdaan waxaan rabaa inaan YouTuber noqdo ama aan content creator noqdo amount of energy waqti uu galiyay inaad ku xisaabtaan marka shortcut ka waxaan galay oo speaker iyo 10 wax hal mar la bilaabay hal wax ka bilow waxa ay hal ugu ogaado bari hadii wax laga weydiiyo shayga asaga marka dad idea badan waxaan ahay tala badan marka idea ka farada badan dadku way wareeriyaan hal wax ku dhigano waxayga meel ka keen Soomaaliya hore uma maada ama meel waa laga maqnaada ama waa laga muuqda marka mar walba qofku uu rabo inuu entrepreneur noqdo waa inuu ogaado wax passionate ku tahay mar walba passion ko laga laabo way passion ko wixii hawlana waad ka sameynaysaa waan ku raaxaysanaysaa sameeyntooda marka mar walba iyo principles inuu mar walba qof ilaaliyo waayo principles xaq badan waa diintaada waa inaad qof aamin noqoto la aamini karo adna ilaahigiisana ku xiran aakhiradiisa adduunkiisa mar walba aakhiradiisa ku horeyso adduunyadan waxaan wax weyn maaha marka mar walba ilaahigaadana ku xirno passion yeelo qof principles yeelo on nafsidiisa la iibsan karin dhanka kale Bashaar ayaa waxa uu ka warramayaa sababta ka dambaysa inaanu isgiibin markastoo caqabadu kala kulmo shaqada shirkadihiisa ganacsi نمي عندنا مقنين عيلنا وقنين choice كلام ولا ده بعد كوس فنت هذا choice مني دي كلام بعد كم حسنا مركز سومالي بدنا حنا عندنا نوم مقنو عيلنا نوم مقنو مركز اسكت عشان هذا وأنا اسكت عشان ها نوش هذا choice كلام مني ها you have to do it choice كلام مني مركز مهما ده سنقول في المملكة إن شاء الله أدبو قابنت لكن معنا بدن بكجلو مركز اسكت شو عيد كلا أقوم مقنن ملا سومالي هذا تهاي ودي كانوا درب مساي تاريخ ثاني مش هكذا ما نعمل هذا سؤال نسيان كباهنا حتى كانوا ودمنا سكجوجنا absolute وحولي هاي private lounge ولا لسه عيارة يا ودي entertainment تيجا هذا ما أعرف صاحبت هذا وهذا كانوا حلي هذا و elephant كسي وين و one bedroom سوشي سوا كنا bathtub ولا safe كذي بقى هيستا wardrobes كذي وحول بالكام بيجو جيران TV كذي walking space كي حفيز كي dining space كي kitchen كواكنا فدي كواكنا كل كلام نواكنا أصحاب سلوا أركستان هل كانوا هوتيل كيس الدحاد أو هوتيل كوهرجلي Bashaar رنتوا هوتيل 5 ستار وعادي هذا قروح بدن إن هل كانوا فدينا سلوا أركستان وديجان هذا قروح بدن درتي جذيه شمبري ودوش هذا كأيه يودمان با وحوي جيدا هذا عقارن يا أركستان إن تنو حكم تهاي رنتي جوبيه قروح بدنا أنت يعني روتش وهي أنا أركو لوكيشن كان وحيابا أندور إنه حكم ده dhirtaan iyo neecawdan quruxda badan iyo hawada nadiifka ah iyo ma aragtay inuu qofkii uu deganaansho iyo nasasho u helayo tan background kan maqlayso waxa ka shanqaray waa shimbir iyo dhawaaq aad qurux badan iyo daanyeer geed ka boodayay wax la mid ah mogta marka shalan ku dhahay marka
arinta la yiraahdo dadka Soomaalida waxaan rabnaa Kilimani iyo meelahaas guryaha ku mashquul ku badan yihiin dhagax inay ka soo tagaan oo nastaan oo maaragtay nacawdan iyo hawo noocan oo kale peaceful ah qofta safar markuu yimaado holiday Nairobi maado maaragtay ku rabo inuu nasto nacawda u baahan yahay iyo environment u baahan yahay mid noocan oo kale marka inuu qofkii nasasho full ah u dareemo oo maaragtay uu mar walba dib baa loo noqonayaa dareemisa nasasho aad badan oo soo helo marka ka faa'iideysto dadku aad bay isku weydiinayaan location-ka hadii aad u tilmaam karto dadka rabo inay imaadaan oo halkan ay degaan iyagu location ku yaala Parkland 6th Avenue Parkland ku yaala wuxuu dhahay mudayga oo meeshan hadda gadaalna dambe Karura Forest Nairobi dadka inay ogyihiin ma dareemi karo laakiin waxay leedahay forestiga ugu weyn oo Eastern Central Africa waa 22 square meter weeyaan marka forestiga Karura Forest waxa naga dambayso oo dhirtan hoosna ku yaala webi yar oo biyo keenayo oo meel aad u qabow oo maartay caawdada macaan tahay marka 6th Avenue Parkland ku taala waxa u dhow masaajidkii Parkland ugu weynaa waxa u dhow Sari Center waxa u dhow Westgate baa jirta 5 minutes marka waa location dadkii central ah gigiri maadaama kii fogada area development ay tahay dadkii Soomaalida ka fog tahay inta waxaan u sameeynaa maadaama dad badan ay degan yihiin deegaanka meesha la yiraahdo Sheikh Parkland inay helaan access kana dhaxbaxsan qaylida iyo buuqi iyo haslinki iyo baslinki magaalada intaasi kadib waxaan booqday hoteelkii koowaad ee ka bilaabmay ganacsiga dhanka hoteelada ee Bashaar 3 sano ka hor halkan hadda soo gaadhnayna waa hoteelkii uu ka bilaabmay hoteelada 5 star-ka ee uu leeyahay ganacsadahan da'da Bashaar waxaana la yiraahdaa Gigiri Lions Villas 1 ama 2 muhiimadda aynu ka baran karno goobtan oo aan sanadkii horena waxay tahay in haddii aad wax bilowdo ana joojin sanadkii hore maran Bashaar Kurani waxa uu sheegay in sanadka soo socda uu furi doono hoteelkii saddexaad oo 5 star ah oo aan goor dhow arki doono waxaana halkaas ka baran karnaa in haddii aad wax bilowdid aanad isdhiibin si kasta xaaladdu adkaato asxaabta sadoo arkaysaan halkan waxaan joognaa mid ka mid ah hoteelada 5 star-ka ee ganacsadahan da'da yar ee Soomaaliga ay leeyahay qaybtan waa qaybtii labaad waa hotel 5 star runtii aad u cajiib ah oo ku yaala magaalada Nairobi gaarigan sidoo kale waxa lagu tala galay in lagu qaado dadka martida ah ee jooga hotelkan 5 star-ka runtii waa gaari aad iyo aad u qaali ah waa Mercedes Benz waliba waa Maybach so brother can you tell us please why do you choose to save your guests for this car? The reason actually why we choose this luxury brand of the Mercedes Maybach class is because we treat all our guests as VIPs, as VVIPs, and we are a luxury boutique hotel and we value our guests, so we have to give them the best of the service. So that's why we choose to ride in a luxury brand of the Mercedes Maybach. asxaabta sadoo arkaysan darawalkii waxa uu sheegay sababta ay u doorteen gaarigan inay tahay in macaamiishooda ay ugu adeegaan sida ugu wanaagsan ugu dambeynna waxaan booqannay hoteelka labaad ee Bashaar uu ka sameeyay magaalada Nairobi kaasi oo Bashaar nugu sameeyay soo dhaweyn xilli dambe oo habeenimo waxaan kala kulmay Bashaar iyo tiimkiisa soo dhaweyn wanaagsan shaqada Bashaar ayaa waxaanu ka baran karnaa daawade in haddii aad rabto inaad ganacsi abuurto in haddii aad aasaasto ganacsi aad u baahan tahay samir iyo shaqo badan ku xidhno waa iibshow lana soco muuqaal cusub